السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa soo baxay application cusub oo suuqii lagu baqanayo inuu ka saaro OpenAI-ga. Waxa la Deepseek, waxa laga sameeyay China, totally waa free. Application-kan AI-ga ah ee u dhigma Chatgtb ee Deepseek wuxuu free ka dhigay version-kii lacagta ku ahaa Chatgtb oo bishii la bixin jiray $200. ma haddii aad ahayd qof markaa Chatgtb lacag bixiya maanta kadib uma baahnid inaad bixiso waa free. Application-kan haddaba free-ga maxaa ka dhigay aynu isweydiin. waxaa jira wax la yiraahdo deep thinking AI-ga oo leh model la yiraahdo deep reasoning thinking. modelkan wuxuu ahaa modelkii dadka lacagta lagu charge gareynayay. modelkii way soo qaateen, way sameeyeen, waxaana ka dhigeen free. waxa u sii dheer waxay ka dhigeen maxay ahayd open source. open source baa laga dhigay, macnaheedu waxa weeyaan cid waliba waxay ku heli kartaa lacag la'aan. waxyaabaha ay ku soo kordhiyeen waxa ka mid ah coding-ka, dadka programmerka ee programmada sameeya inay API-gii ay charge gareynayaan 10 cent halka API-ga uu ka charge gareeyo lacag badan Chatgtb oo imika dad badan developers ay ku adagtay inay sameeyaan application AI ah because of the charge of the money. taasi waa waxyaabaha ka dhigaya unique Deepseek. Deepseek waxa weeyaan powerful all the time. macnaheedu waxa weeyaan marka imika inagu aynu user ka nahay Chatgtb haddii aad waxaad haystaa 3 isku day. haddii 3 jeer aad wax soo geliso oo video soo geliso oo ku tara analyze gare ama aad sawir soo geliso ama aad soo geliso document wuxuu kugu oranaya way ka dhamaatay wuxuu kugu celiyay 3.5 version-kii lacag la'aanta ahaa. waa powerful all the time, which means maxay ahayd waxaad soo gelin kartaa documenti, waxaad soo gelin kartaa video, waxaad soo gelin kartaa image ilaa iyo maxay ahayd content MB ah ayaa soo gelin kartaa. 100 MB maaha content MB, 100 MB xagan muraayadanka eegaya ilaa 100 MB waxa weeyaan oo hal video amba hal maxay ahayd document intuu size-kiisa uu ka gaarayo waxaad ku haysanaysaa free baad ku haysanaysaa. waa waxyaabaha ka dhigay marka